السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وعمدا وضيال ملكستو أد جوجتان هلكن وجنالك الحرية نيوز waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door karoon wararka aan idin hayna xilligan. Madaxweyne Farmaajo oo qaraxii maanta ku tilmaamay argagixin shacab oo aan la aqbali karin. Ra'iisul Wasaare Khayre oo guddi gurmad qaran magacaabay kadib markii caasimadda Muqdisho maanta qarax uu gilgilay. Duqa Muqdisho oo sheegay in ku dhawaad 100 qof ay ku dhaawacmeen qaraxii maanta ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye. Dhabaa in xildhibaanada golaha shacabka ay isku raaceen ansixiyeenka sharciga doorashooyinka dalka. Madaxda Puntland oo baadigoob ugu jirta soo celinta kalsoonida shacabka gadooday jiritaanka maamulkaasi. Maamulka gobolka Hiiraan oo ficil fuleynimo ah oo lagu gumaadayo shacabka Soomaaliyeed ku tilmaamay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Dowladda Turkiga oo xaqiijisay in muwaadiniin u dhalatay dalkeeda ay waxyeello ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay gobolka Banaadir. qodobada ay qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka janalka Al-Hurriya News. Haddii aad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka ugu horeeya ee hela wararka warbixinada wareysiyada 24 saac halkan aanu soo gelino. Ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. Madaxweyne Farmaajo ayaa qaraxii maanta ku tilmaamay argagixin shacab oo aan la aqbali karin. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa u tacsiyeeyay qoysaskii iyo eheladii muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku nafwaayay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in ficilkii maanta dhacay uu yahay mid argagixisadu ay ku gumaadayaan shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya mar walba ay dadaal ugu jirto in ay wax ka qabato dhibaatooyinka ka dhacaya dalka isla markaana loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay kala shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya. Laamaha ammaanka dalka ayuu ugu baaqay in ay xoojiyaan amniga magaalada Muqdisho si xal waara looga gaaro qaraxyada iyo dhibaatooyinka soo laalaabtay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. saaki subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano Ex Control aada wadada aada Afgooye. halkaas oo ka dhacay qarax aad iyo aad u weyn ayna ku laadeen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nolol maalmeedkooda, u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda, iyo caruur u kala hay iskuuladooda oo da'yar, iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhaxeeya Ex Control iyo Afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda. waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado. Ilaahay ha u naxariisto, jannadiisa iyo naxariistiisa Allah ha siiyo, qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samir iyo iimaan Allah ka siiyo. waqti ay ku soo beegantay waxay ahayd waqti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda. ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda Soomaaliyeed ay argagax galiyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladoodu marna lama qalbi jabin karo, marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibdhiskiis. kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqeysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed inay xalaaleystaan dhiigooda, ay xasuuqaan ummadda Soomaaliyeed, ay burburiyaan wax dhismo ah. shabaab wax ma dhisaan, waxbay dumiyaan. ma dhisaan iskuulo, ma dhisaan goobo caafimaad, ma quudiyaan shacab, kama shaqeeyaan mustaqbalka caruurta Soomaaliyeed. waxay ka shaqeeyaan oo loo soo contract gareeyay oo loo howlgeliyay inay ummadda Soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka, inay laayaan shacabka Soomaaliyeed, inay laayaan caruurta Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkan uu leeyahay. waxaan ku adkeenayaa xukuumadda ama aan farayaa inay si degdeg ah u gurmadaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaas lagu xasuuqayo cisbitaalada yaala, ay si degdeg u gaarsiiyaan wax alla wixii taageero ah ay la gaari karaan. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda cisbitaalada yaala, wax alla wixii taakuleena ay la gaari karaan la gaaraan. waxaan Allah uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu Ilaahay jannadiisa iyo naxariistiisa siiyo, eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana uu ka siiyay samir iyo iimaan. dhibkan maanta dhacay wuxuu noo yahay cashar
joogto ah dalku wuxuu ku jiraa dagaal inaan u feejignaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheynayso inay tahay inay layso shacab Soomaaliyeed aysan u socon dadka u shaqeeya dawladda waxa loo baahan yahay inay arinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inay namideyso oo aan hal meel uga soo wada jeesano la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqeysata waa markii labaad sanadkan gudihiisa oo qarax lala bartilmaameedsado isgoyska X control afgooye gaar ahaan halka lagu qaado canshuuraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in ay dadaal ugu jirto xalinta dhibaatooyinka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay sheegeen in dawladdu istiraatiijiyadda ay u wajahayso dhanka amniga marka la eego wax badan ay ka qaldan yihiin isla markaana loo baahan yahay in dawladdu ay u dhiibto amniga dalka dadka ehelka u ah arrimaha la xiriira dhanka amniga wali waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News ismaqliyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ra'iisul wasaare Khayre ayaa guddi gurmad qaran magacaabay kadib qaraxii maanta gilgilay caasimadda dalka ee Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeyn doona isku dubaridka gurmadka loo sameeyo dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho ra'iisul wasaaraha ayaa ugu horeyntii u tacsiiyay ehelada dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in guddigan la magacaabay ay ka shaqeyn doonaan isku dubaridka gurmadka loo sameeyo dhaawacyada iyo gargaaridda eheladii ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday qaraxaasi mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dhaawacyada gudaha aan wax looga qaban karin loo raadinayo caawinaad iyo daryeel dalka dibadiisa ah waxaana bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay meel kastoo ay joogaan in ay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska X control afgooye waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiirro iyo gudoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas loona gargaaro eheladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo ciddii aan lagu daaweyn karinna aan u raadino xal dibadda loogu qaado shacabka Soomaaliyeed kuwa magaalada Muqdisho jooga iyo dalka dibaddiisa iyo meelaha kaleba waxaan leenahay waqtiyada ay dhibaatadu dhacaan waa muhiim in la soo gurmado waa inayna shacabku isu gurmadaan xarun gargaar degdeg ah ayaa looga shaqeyn doonaa si la isugu dubarido shaqada gargaarka ee socota ugu dambeyntii dalkani waa dal dagaal ku jira argagixisaduna waxa ay beegsataa kaliya waa shacabka Soomaaliyeed waxaana rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego ummadda Soomaaliyeed niyadooda marna daciifi mayso inta laga soo afjari doono guushana ummadda Soomaaliyeed 100% ay ku dambeyn doonto mar labaad waxaan taxsi u dirayaa dadkii laga geeriyooday kuwa xanuunsanna oo ku dhaawacmana waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay si dhaqso leh u caafiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ku dhawaad 100 qof ay ku dhaawacmeen qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed oo gaaray X control afgooye ayaa sheegay in dad badan oo gaaraya ilaa 90 qof ay ku dhaawacmeen qaraxii maanta ka dhacay isgoyska X control afgooye ee magaalada Muqdisho duqa Muqdisho waxa uu sheegay in tirada dhimashada aysan yareyn isla markaana aan wali la xaqiijinin maadaama uu socdo gurmad xoogan oo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxaasi loo fidinayo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxaasi waxa kamid ah arday saarneed bas kuwaasi oo u socday mid kamid ah jaamacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho waxaana la sheegayaa in baskaasi qaraxa markii uu haleelay kadib halkaasi ay ka dhalatay qasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ardaydii saarneed baskaasi
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa booqday qaar ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho sidoo kale gudoomiye Cumar Finish ayaa warbaahinta kula hadlay isgoyska ex control afgooye waxa uu sheegay in dawladdu ay dadaal ugu jirto wax ka qabashada dhibaatooyinka la soo gudboonaaday shacabka Soomaaliyeed. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalaam ala Rasulillah. Maantay oo ah maalin Sabti ah dabayaaqada bisha December waxa ka dhacay ex control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah. qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska ex control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac fara badan. dhimashada tira rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno. dhaawacu waa 9 sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii. tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara. dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha. number weyn ama tiro badan oo ardayda ah waxay ahaayeen jaamacadda banaadir. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas. wali waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Hurriya News. ismaqliyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. ma dhabaa in xildhibaanada golaha shacabka ay isku raaceen ansixinta sharciga doorashooyinka dalka. xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyay sharciga doorashooyinka qaranka oo maalmihii la soo dhaafay dood adag ay kala hayeen ay marsiyeen kadib markii maanta ay marsiyeen aqrinta saddexaad ayaa gudoomiyaha golaha shacabka uu sheegay in loo baahan yahay in cod loo qaado sharcigaasi. xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyay sharciga doorashooyinka qaranka heer federaal iyadoo ay u codeeyeen 171 xildhibaan. golaha shacabka waxa uu gaaray guul taariikhi ah iyadoo aqlabiyad baarlamaan lagu ansixiyay sharciga doorashooyinka oo dalka u horseedaya doorasho qof iyo cod ah iyadoo lagu tartamaya hannaanka asxaabta siyaasadda badan ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulankaasi shir gudoominayay. wali waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Hurriya News. ismaqliyo daawasho wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. madaxda Puntland ayaa baadagoob ugu jirta soo celinta kalsoonida shacabka gadooday jiritaanka maamulkaasi. gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa maanta gaaray gobolka Sanaag halkaasi oo dhawaan lagaga mudaharaaday maamulka Puntland ee uu hogaamiyay Siciid Cabdullaahi Dani. socdaalkiisa ayaa waxa uu ku saabsan yahay sidii loo soo celin lahaa kalsoonidii Puntland ay ku lahayd shacabka gobolkaasi kadib markii dhawaan halkaasi uu ka dhacay mudaharaad loogaga soo horjeedo xilka qaadistii gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Puntland. gudoomiye Cabdirashiid ayaa socdaalkiisa ka bilaabay degmada Dhahar isagoo halkaasi kala kulmay soo dhaweyn wanaagsan inkastoo deegaanada qaarkood loo muujiyay diidmo. banaanbaxyada ayaa maanta ka sii socda qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Sanaag sida degmada Xingalool iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi. waxgaradka deegaanadaasi ayaa sheegay in halkaasi ay ka dhisayaan maamul loogu magac daray Maakhir State oo ay sheegeen in ay ku midoobeen gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo ay isku haystaan gacan ku haynteeda maamulada Puntland iyo Somaliland. socdaalka ayaa ku soo beegmaya xilli saraakiil ciidan oo ka soo goostay gobolkaasi ay ka digeen waxa ay ugu yeereen faragelin ay Puntland ku samayso kheyraadka deegaanadooda. qaybihii ugu dambeeyay wararkeena ayaan isla soo gaarnaa markana. maamulka gobolka Hiiraan ayaa ficil fuleynimo ah oo lagu gumaadayo shacabka Soomaaliyeed ku tilmaamay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay in arintaasi ay tahay fal argagixisadu ay ku argagax gelinayaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana aan loo dul qaadan karin. waxa uu ugu baaqay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed in ay ka wada shaqeeyaan sidii loo sugi lahaa amniga caasimadda dalka. ugu dambeyntiina daawadayaal Turkiga ayaa xaqiijiyay in muwaadiniin u dhalatay dalkaasi ay ku waxyeeloobeen qaraxii maanta ka dhacay isgoyska ex control afgooye. dawladda Turkiga ayaa xaqiijisay in muwaadiniin u dhalatay dalka Turkiga lagu dilay qaraxii weynaa ee saaka ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan ex control afgooye. safiirka Turkiga u qaabilsan Soomaaliya
ayaa xaqiijiyay in laba muwaadin oo Turki ahaa ay ku dhinteen qaraxaasi sida ay ka soo xigteen wakaaladda wararka ee Anadolu. labada muwaadin ee u dhashay dalka Turkiga ayaa ahaa injineer ka tirsan shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo qaadatay qandaraaska dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. guud ahaan daawadayaal wararkii aad kala socoteen janaalka Al-Xurriya News xilligan waa naga inta. haddii aad daawada ku cusub tahay janaalkeena fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad u noqotid qofka hela wararka warbixinada iyo waraysyada halkan aanu soo gelino. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka iyaga.